waxaan rabaa wax yar inaan idinka tuso iilsheekar dadka kambaniga one life memberka ka ah ayuu quseeyaa videogan iyaga ayaan u duubaya insha allah su-aalaha inta badan waxay noogu yimaadaan qofka iilsheekar marka iska diiwaan gelinayo waxyaalo badan uusan garanaynin emailkiisii marka waa inuu qofka bixiyaa si loo helo KYC ansax ah si loo helo waa inuu qofka soo bixiyaa 4 euro 4 euro waxaad ku bixin kartaa PayPal ama waxaad ku bixin kartaa account-kaada sababta maxay tahay dabcan sidaan oo kale marka aad soo bixisid 4 euro waxa waa step-ka xiga waxaad xareynaysaa KYC KYC-ga waxaa laga rabaa documenti aad adigu leedahay inaad haysid tusaalahan passport ID iyo wixii lamid ah iyo sawirkaada ayaa laga rabaa systemkan marka waxaa ansixinaya wax la yiraahdo Genium waa maxay hadaba Genium waa systemka international security-ga ah ee wadamada caalamka loo sameeyay Soomaaliya haddii aan u noqono kale Soomaaliya ma haysato Genium-kan wixii ka dambeeyay 91 wixii ka dambeeyay waxa ay ahayd cunaqabateyn ayaa saarnaa oo dhinaca hubka ah cunaqabateynka wadamada u saaran yahay sida Suudaan Soomaaliya Bangladesh wadamo badan ayaa jiro uusan ka shaqeynaynin si international ah ama si automatic ah uusan u soo qabanaynin wadankooda maxaa la sameynayaa marka wadamadaas waxaa loo ogolaaday KYC-da waxay ku sameyn karaan waxa la yiraahdo manual oo ah liitarada maamulka ku jiro ama kambaniga qaybta ka ah ayaa waxaad u diraysaa sawirkaada adiga oo gacanta ku hayo documentigaada passport ama ID kadib waxay u gudbinayaan qaybta administration-ka maamulka guud ee kambaniga qaybtiisa iilsheekar way jakareynayaan kadibna way soo ogolaanayaan waxa markaa lagu siinaa approvalkaas markaad heshid ayaad ka gudbi kartaa marka systemkan stepka markaad ka gudubtid waxaad u gudbaysaa stepka labaad oo ah sida aad u kala dooran lahayd package-yada waxaa jira package kala duwan sida halkaan ku aragtaanba package oo free package ah iyo kuwa ay dabcan marka ugu horeysa aad lacag bixinayso 5 euro iyo 10 euro wixii lamid ah marka package-ka free-ga ah ayaa badanaa aan nidhahnaa dadka qaata sababtoo ah package-kaasi ilaa 5 product ama waxa la iibinaysa 5 shay oo kala duwan waxa la iibinaysa ayaad ku iibsan kartaa laakiin kuwa free-ga kuwa lacagta ah tusaale ahaan midka 5 euro ah ilaa 25 product oo kala duwan ayaad ku iibin kartaa oo soo gelin kartaa su-aashaas marka ama jawaab su-aasha ahayd sideen u abuuran karaa store waad arkaysan sidaas ayaa looga jawaabay tusaale ayaan usoo qaatay dabcan haddii dabcan su-aalaha kale aad qabtid tusaale ahaan waad dhexgashay waad abuurtay stepyo badanaa weli kuu dhiman sida waxaa kuu dhiman in aad tagtid waxa la yidhaahdo shipping methodka markaad tegaysid iyadana waxay u baahan tahay wixii inaad fahamsan tahay haddii lacala ay kuga adkaato ama su-aashaas ay ka hor imaato halkan ay ka wada raadinaysaa dhammaan wixii su-aale ah marka aad samaynayso hadda tusaale ahaan shipping halkaanaad imaanaysaa waxaa lagu dhahay how do I best configure my shipping method for my store qofka sida uu ku sameyn karo shipping storekiisa step by step halkan ayaa lagu sharaxay qofka Englishka yaqaan uma baahna inaad cid kale raadisid toos ayaa su-aalahan jawaabahooda u qaadanaysaa kadibna waad samaynaysaa tusaale ahaan halkan waxaa lasoo qaatay marka ugu horeysa qofka muxuu sameynayaa ama laga doonayaa inuu sameeyo inuu u fahmo qofka marka ugu horeysa sida marka uu dhamaystir lahaa wixii inuu fahmo ayaa laga rabaa tusaale ahaan shipping countries marka lagu dhaho ama qaybta wadamada aad ka dooranayso waxaad ka dooran kartaa all countries ayaad ka dooran kartaa sidoo kale individual ahaan iyo emergency ahaan labadaba waad u isticmaali kartaa hal wadana waad ka dooran kartaa tusaale ahaan haddii Soomaaliya aad joogtid adoonis kale Soomaali regions aad inaad ku iibisid ama gobolada Soomaaliya oo kale inaad ku iibisid sabab waxaad ka dooranaysaa Soomaaliya waxaad haysaa online Soomaaliya ku iibinaa dukaankayga gobolada marka raacin kartaa tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa gobolada koonfureed kuwa waqooyi iyo dabcan gobolada dhexe iyo kuwa bari ayaan ku iibinaa calashan adiga ku qoran kara hadda tusaale ahaan waxaa loo soo qaatay wadamada kale shipping methodka uu isticmaal ama shipping methodka uu isticmaalaya for example waxaa loo soo qaatay Sweden and Norway haddii aad degan tahay Norway aad alaabtaada geynayso Sweden wala laba wadano daris ah Sweden iyo Norway ayaad dhihi kartaa aad ku qori kartaa haddii Sweden kale aad degan tahay Sweden kale waad ka dhigi kartaa laakiin go'aanka adiga iskale alasan tusaale ayaa loo soo qaadanaya sidoo kale waxa la yiraahdo kilogram ayaa jiro sida mobilada alaabada tusaale ahaan dharkoo kale waxyaalo waxaa jiro
علشان marka shippingka qofka loo xisaabinayo la qaadayo kale kilogramkooda in la ogaado muhiim ah marka kilogramkana meelaha kilogramka markuu ku weydiiyo space ku weydiin doonaa ku buuxinaysaa waxyaalaha aad iibisid tusaale ahaan mobilada halkii mobil waxaad ogaanaysaa inta kilo uu yahay ama kilogram ama inta gram uu yahay dahabka haddii aad iibeysid sidoo kale inta gram uu yahay ayaad ku qoraysaa dhammaan marka qeybahan aad ayay muhiim u tahay qofka alaabada marka uu rajista garaynayo inuu ogaado waxa la yiraahdo waxyaalahan oo dhan waxay ku baxayaan hadhowta lacagaha la sumarnayo oo la isticmaalayo waxa la yiraahdo waa PayPal sidoo kale company-gan waxaad ogtihiin basic lacagtiisa waa coin iyo euro marka waxyaalaha aad account-kaada ku xirayso tusaale ahaan marka aad ku xirtid account-kaada DealShaker iyo account-kaada One Life ku xirmo waxay noqonaysaa lacagaha isticmaalayso euro iyo lacagta coin-ka ah qaybta cash account euro hadii kugu jiro waxyaalahaas euro ku iibsanaysaa hadii coin account-kan aad kugu jiraan sidoo kale hadii alaabtaada la soo iibsado coin lagu soo diro waxay kugu dhacaysaa qaybta coin account-ka One Life aad ku leedahay hadii cash iyo coin la sugu dirana qaybta cash-ka waxay gelaysaa qaybta euro-ga laakiin marka ay noqoto lacagaha kale qofka inuu isticmaalo waa inuu marsiiyaa waxa la yiraahdaa PayPal waa inuu qofka isticmaalaa okay PayPal kana saad ogtiin qofka account-kiisa ayuu ku xiran karaa bangiga account-kaada ayuu ku xiran kartaa marka su'aalahan waxay idinka anfacayaan dabcan dhammaan process-ka loo mara ama process-yada u mari kartaan marka aad diiwaan gelinaysaan dukaanka aad dabcan ku leedahay DealShaker waxaan hor u soo qaadanay DealShaker inuu yahay platform oo online market ah isla markaana e-commerce system-ka lagu isticmaali karo qofka isagoo gurigiisa jooga dukaan uu ka dhigan karo oo international ah isla mar ahaantaana alaabta aad soo gelisay xayisiin ay ku noqonayso ay arkayaan taana iibsanayaan dad aad u fara badan dabcan wadamo badan oo caalamka degan sida 196 wadan ayaa company-gan u ogolaaday oo qof in ay wadamada kale joogaan inay isticmaalaan marka masha Allah xayisiin uu ku noqonayaa alaabtaadii waxaad soo gelinaysaa waad faafinaysaa waa sharaxaysaa waxa haysid hadii waxyaalaha traditionalka kale aad haysid ama waxyaalaha alaab dhaqameedka kale runtii aad ayaa loo xiiseeyaa wadamada dhaqamaha kala duwan alaabada ay isticmaalaan dharka iyo tusaalahan waxyaalaha la midka ah sida waxyaalaha dhirta laga sameeyo kale masha Allah laakiin marka ay noqoto xoolaha lama ogolo waxyaalaha jirka xoolaha ku saabsan oo dhan laguma iibin karo company-gan iyo sidoo kale jirka bini'aadamka laguma iibin karo marka waxaan ku dhiirigelin lahaa dadka ganacsiga online-ka inay sameystaan raba way iska soo diiwaan gelin karaan registration ay sameynaysaa sida marka hore adiga shakhsiyan aad isu diiwaan gelinaysaa kadibna dukaankaada ayaad abuuranaysaa kali waxa ka baxay waxa weeyaan 4 euro oo automatic aad uga saari karto bangigaada waana muhiim inaad bangi leedahay sababtu maxay tahay hadhow alaabta laga iibsaday lacagteeda waa inay kuu soo dhici kartaa hadii kale aad dabcan One Life ka mid tahayna waxaad isticmaalaysaa san ku sheegay account-da One Life aad isticmaali kartaa lacagteeda aad waqtiga kala bixi kartaa marka walaalayaal clip waa soo gaabina maanta waxaan ugu talagalay su'aalaha dhinaca hadda xooga la saaray ee ah in la abuuro dukaan ama store la abuuro insha Allah wixii su'aalaha halkan aad ka daawan kartaan hadii luqadda Englishka halkan ayaa dabcan ka raadin kartaan hadii luqadda Englishka ay kugu adag tahay waxaad caawin weydiisan kartaa asxaabtaada saaxiibadaada si markaasi waxa aad rabtid lagaaga caawiyo ay kaaga caawiyaan soo gelida qaybtan DealShaker-ka dabcan uma baahno kali registration marka ugu horeyso laakiin qof walba uu daawan karaa marka ugu horeyso kadibna wuu isdiiwaan gelin karaa tusaale hadii aan dib u noqdo waxaad samayn kartaa new DealShaker ayaa leedahay markaad new DealShaker qortid gobolaha adigoo jooga ayaad click leedahay page-ka new DealShaker ugu geynaa marka ugu horeyso waxyaalaha aad doonaysid inaad sameyso si aad dabcan su'aalaha aad adiga isaga qancisid waxaad samaynaysaa marka aad new DealShaker soo gasho qaybta ugu hooseysa ayaad tagaysaa sida halkan aad ujeedid waxaa ku muuqanaya qaybahan kala duwan su'aashaada waxay qusayso tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa marka aad doonaysid inaad furtid store aad furtid oo emergency-ga store-keeda dukaankaada inaad register gareysid halkaas ayaad click siinaysaa waxaa rabnaa su'aalo badan oo aad rabtid in halkan aad ka heshid insha Allah halkan markaad timaadid saad ujeedaan markaad halkan timaadid 52 su'aalood iyo jawaabahooda ku jiraan oo ku saabsan store-ka ama emergency-ga sida qofka uu samaysan karo dabcan dukaanka su'aalahan marka su'aal kasto adiga ka guuxayso sida aad u diiwaan gelinayd u register garanayd halkan ay ku jirtaa
haddii aan tusaale soo qaato stoorka marka aad rabtid inaad abuurtid stoorkaada su'aalaha su'aal ka mid ayay ku imaanaysaa dabcan kaad hoose ayaan u soconayaa si aan u dul tagno qofka halka uu ka bilaabayo marka uu stoor abuurayo ama dukaankiisa uu doonayo inuu ka rajista gareeyo DealShare. halkaanaan imaanayna sida ujeedaan how can I open a store on DealShare qofka sida uu uga furan karo dukaan uga abuuran karo ama uga samaysan karo DealShare dhexdiisa kilig ayaad siinaysaa kilig markaad siiso stepkan ayaad raacaysaa tilaabooyinkan aad raacaysaa marka ugu horeyso waxaa lagu dhahay to open a store si aad u furtid store please follow the step below waa inaad raacdid qodobada hoos ku qoran marka ugu horeyso waxaad leedahay click on open store tusaale ahaan halkaas ayaad tegaysaa open store ayaad leedahay kadib waxaa kuu furmaayo page ayaa kuu furmaayo pagekaas waxaad kasii dooranaysaa haddana open a new store waxaad furaysaa marka aad pageka markaad gashid open new store ayaad furaysaa cashirkan horena waxaan usoo qaadanay dabcan cashirada hore ku jiray fiidiyoyada waad ka daawan kartaan oo stageyadan sidaad u marayso qofka markuu intaa maro waxaa lagu dirayaa oo xiga oo ah inaad samaysid tusaale ahaan in aad soo bixisid €4 okay markaad new DealShare marka aad tiraahdid halkaan uu ku keenayaa marka adiga si su'aalahaasi aad ogaato hoos aad tegaysaa qaybta hoos aad tegaysaa halkaan markaad imaatid waxaad leedahay store and merchant aad leedahay tan markaan tagno qaybtan barrows waxaan oo dhan waa su'aalo calaashaan aad iyo badan su'aalaha ku jiro runtii qofka wuxuu kaga bogan karaa isaga oo qof aan weydiinin su'aalaha jawaabahooda halkaan ayuu ka heli karaa marka insha Allah sidaas sameey walaalayaal waa mahadsantihiin